Food is so hard to find this far north that a wolf pack must search hundreds of square kilometers if it's to be successful. aad bay u adag tahay in cunto laga helo halkan oo ah cirifka waqooyi ee dunida waa in kooxdan Yeydaahina ay boqolaal kiiloomitir oo isku weer ah ka raadiyaan waxay quudan lahaayeen waa haddii uu guulaysto hawlgalkoodani. And success means raising the next generation. guusha kooxdanina waxay ka dhigan tahay koriimada iyo kaalingelinta facan ka xiga si ay haddaba taasi u sameeyaan waa in kooxdan Yeydaahi ay wada shaqeeyaan. To do that here, the wolves must work together. Aydiyadan halkan lagu korinayaana uma aha oo qura kooxdan Yeydaahi waalid balse waa adeeradood iyo eedooyinkood waana qoys qaraabo iyo xigtaba oo wada qowlaysta. So the young are raised not only by their parents but by their aunts and uncles as well. wadajirkooduna waa mid ay ku rumaynayaan riyadooda ah qaangaadhgelinta aydiyadan yaryar inta aan la gaadhin xilliga qaboobaha ee roobka barafka wata soo daayo. Together they try to ensure that each pup reaches near adult size before the snow returns. aydi kastaana waxa uu u baahan yahay waqti ku filan oo uu kaga gudbo xaaladdan caananuugnimada iyadoo loo diyaarinayo gaashaanqaad isku filan. A growing pup needs more than just a few leverets. Yeydu waxa ay u baahan yihiin cunto badan oo ku filan sidaa awgeed waa in ay u ugaadhsi tagaan si koox wadar ah waana kuwan hadeer bilaabay hawlgal horle. The wolves need bigger prey, and to catch that they must hunt as a pack. bakaylahan cad ee codba joogsanaya waa mid ka war helay in lagu soo maqan yahay waana ka uu bartilmaameedka Yeydani yahay waxa uu sheeda ka eegaya wax gaade ah dhagihiisa dhaadheerina waa kuwa u saamaxaya inuu si fudud u maqlo shabaq iyo jibin kasta oo hirarka hawada dhex maraya. Adult hares may be easy to spot, but they're far from easy to catch. They run at 60 kilometers an hour. bakaylaha cad ee lagu magacaabo hare waa mid si fudud u muuqan kara oo loo bartilmaameedsan karo laakiin si fudud laguma qaban karo saacadiina waa mid ordi kara masaafo lagu qiyaasay 60 kiiloomitir. hadeer waa la hareereeyey halis baanu daaqay. mid ayaa ku sigtay inuu dib ka qabto laakiin ma dhicin oo uu ku guuldareystay. One of them gets close enough to bite the hare's tail. But a hare can change direction in an instant. dabadan ay jabinayaan qabashadeeduna waa mid jahajahaynaysa oo aan si joogto ah u jahajahaynaysa goosmooyinka iyo dhinacyaynta badanina waa mid keeni karta inuu uga badbaado bakaylahani si kama dambaysa. If it can continue to sidestep and jink, it may ultimately outlast them. Finally, it gets away. ugu dambayntiina ka badbaad oo ka baxsay hawlgalkii tashiga ku dhisnaa ee Yeyd. waana la isa soo ilxoolaadiyay iyadoo la kala yahay laba mid quudoon quraac beelay ah iyo mid ayaamihiisu kari gaadhay. kooxdii Yeydaahayna may samrin oo mar kale waa ay soo rogaal celiyay bakaylihiina jaanta rog oo xaqiiqsay in mar kale loo tashaday. Yeydiina tala isha laga tuuray waxay ku gaadheen qorshe cusub markan waxa ku cusub weerarka iyay kale oo xoojinay si culayska loo saaro bakaylahan loo caalayahay. Now numbers count. The lead wolves keep up the pace,
Others run on either side so the hare can't change direction. A tiny meal for a whole pack. aakhirkiina bakaylihii dhinacyeynayay dhab loo qabay inkastoo ay tahay cunto yar haddana qaboojin ugu filan iyo howlgal guulaystay